waxyaalaha qaarkood aan sameynayno waxaa laga yaabaa in dadka horta aan ku sameynin sababtu waxay tahay anagoo ka xishoonayno ama aan ka khajilayno waxaa cajiiba mudakhaana nabi sallam ayaa saxaabi u yimid wuxuu ku yiri waxay tahay rasuulka ilaahayow ii dardaaran oo dardaaran isii oo waxaad isiisaa waxay tahay talo wuxuu ugu jawaabay mataqaana nabi sallam يعني أنا قالوا نو دردارميا صحابي قاسنا ودردارميا وحوليا هاي اللهم صل عليه كحشو إلهي سبحانه وتعالى الله هي سيدا آت وحشوني ست قفك وقواناك سن يعني غير كينا أما قفك تقانت إن وحيابها قار وكوغو أركو آت وقو عيب سني ست سيدا يسي كدران ugu xishow Allah iyo rabbiga ku abuurtay yani waxa laga wadaa waxay xuduud Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha uu kugu talagalay iyo meelaha uu kugu jecel meesha waxa ka dhaxaako meelaha xumaanta iyo meelaha fusuq ayuu Ilaahay subhanahu yani ka dhaxaaqin uu ku jeedaa meesha aad joogtid nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sii asiga ka awli badan dadka aragtooda waxa ka xishoodid laakiin ma ogtahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel walba aad joogtid inuu ku jeedo حدود يعني استاك إلهي سبحانه وتعالى كعبسه سد بابا هو عبس هذه هنكون دقنا إن شاء الله تعالى هذا دارن كاس مال والبقى جوكت حالة والبقى تكسو أنت أوجو متك كو أبوري جعمهن إنهن دجهن أو هذه أونا كو أبوري إنه كو جيدو يعني خفوا إنه كحش ولا مكة إن ربي جاسو أنت نعمسيي إن هذا إسلا النعمة لاس وكو عاصيو إلهي سبحانه وتعالى هذا بقى يوسف كو أكن ربي عز وجل ما لها وكود دي هدي دعنا أصيغ الله عز وجل وناق رعسي صوبته وناقة وحي تغترتا وحي تهي حماياش ما شاء الله ما شاء الله